wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland mudane Maxamed Axmed Maxamuud Caawud ayaa sharaxaad ka bixiyay heshiisyo ay Soomaaliland la gashay bangiyo caalami ah oo uu sheegay inay maalgashi ku sameysanayaan Soomaaliland. wasiir Caawud oo ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Turkiga ayaa 31 January 2019 telefishinka codka bariga Afrika u sheegay in Soomaaliland ay sanadkii hore heshiis isfahan la gashay bangi caalami oo laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaana uu sheegay in bangigaasi qadar lacag oo dhan $1 bilyan oo dollar ku maalgashanaya Soomaaliland. mudane Caawud waxa uu soo bandhigay dalal uu sheegay inuu bangigu soo maray ka hor intii aanu Soomaaliland heshiiska isfahanka la gaarin. qoladan ay timid Senegal bay soo mareen, Ethiopia soo mareen, Djibouti bay soo mareen, Soomaaliland bay noo yimaadeen. waxay la yaabeen dalka intan laagay ciidaanay deganay, waxay ka yaabeen jawigeena fiican. markiiba waxay ku qanceen bal aanu wasaaradii lahayd aan tagnay markaas ay yimaadeen proposalka soo bandhigay waxa soo meel la scale la dhaabay soo mareen. dalxiislota waxay arkeen taariikhan leenahay oo 7,000 sano ah dhagxaanta waxyaabo ku sawirnayo inaga dawraabi waxyaabaha samada ku dhudhuntaba warba kama hayna adduunkuna dalxiis kan la isu taga hadii Turkiga inta yar ku oolay laguma kala bixeen. waxay raadaan marka sanadkii mala 5 milyan ba sanadkii dambeeyay 2017 noo yimid dalxiiska way tirsadaan dadkii. wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland mudane Maxamed Axmed Maxamuud Caawud mudooyinka u dambeeyay safar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Cabdi Fataax Harad, codka bariga Afrika, Hargeysa.